يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم يا خالقي أنت الرحيم ارحم بفضلك ذلتي. نعمات لك في العباد ومنات وبكل شيء آيات دلت عليك. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إن شاء الله maanta mawduuceeni wuxuu ku saabsan yahay taxriim الكفران العشيري. dumarka in laga xaaraantimeeyay in ay ku kufriyaan nimankooda. weligiina ma maqasheen naarta waxaa u badan dumarka. haddaba jawaabtaada haddii ay tahay haa mise haddii ay tahay maya haddaba kugu faahfaahinaya ayay dhegeyso. sababtay naarta ugu bateen dumarka waxaa ka mid ah raggoodii bay ku caasiyeen. haddaba kufrinta ay ku kufriyaan raggoodii baa kuu sheegaya waxay tahay dhegeyso. kufrinta aad kufrinaysa waxaa ka mid ah ninkaaga awaal oo kuu sameeyey inaad ka been abuurto oo aad dhahdo weligiisa awaal iima suubin. labo inaad amarkiisa oo dhanba qaadaninoo taadle ay kuu socto. saddex ninkaaga ceebihiisa inaad bannaanka soo dhigto. afar inaad ifus dhahdo bilaa sabab la'aan. shan ninkaaga oo ku dhahay sheygaasi waan dhibsaday iga jooji weli aad adigana kasii dawoodid. shantaas iyo wixii la mid ah iska ilaali. xadiis buu nabiga sallallahu calayhi wasallam inoogu caddeeyey dumarka ku kufriya nimankooda in ay u badan yihiin naarta. xadiiskaasina waxaa inuu soo warinayo ibnu cabbaas allaha ka raali noqday asigii iyo aabihiisa. ibnu cabbaas wuxuu leeyahay rasuulka baa wuxuu leeyahay naxariis nabadgeliye korkiisa ha ahaatee أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. waxaa la itus buu leeyahay rasuulka naxariisna nabadgeliye korkiisa ha ahaatee naar baa la itus naartaasoo ehelkeeda dadka ugu badan ee ahaayeen dumar kufriyey. wuxuu leeyahay ibnu cabbaas allaha ka raali noqday asigii aabihiisa wuxuu yidhi ibnu cabbaas ayakfurna billaah rasuul allah dumarkaasi caasiyeen ilaahay miyay ku kufriyeen. wuxuu yidhi rasuulka naxariisna nabadgeliye korkiisa ha ahaatee ayakfurna cashiira waxay ku kufriyaan raggoodii. wuxuu kaloo raaciyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wayakfurna alixsaan low axsanta ixdaahunna dahra. waxay kaloo ku kufriyaan ixsaanka u sameeyey raggooda. haddii aad ixsaan u samayso dumarka zamanka mid ka mid ah uma ra'at minka shay-an kadib haddii ay ka aragta xaggaada shay yar ay dhibsatay waxay ku leedahay maa ra'aytu minka khayran qaddu. waxay leedahay weligeyga kaama arkin xaggaaga wax khayr ah. xadiisku waa xadiis muttafaq ah. marka dumarow ha noqonin kuwaan hadda rasuulka soo tilmaamay ee noqo mid awaalka gudda haddii xitaa awaal loo gadin ceebta zawjkeeda qarisa. intaan ayaan kusoo gabagabaynayaa nala soco insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال.